Ku soo dhowaada barnaamijkeennii aynu uga hadli jirnay deegaanka dalkeena hooyo. Maanta waxaynu ka hadli doonaa buuraleyda waddankeena. Buuraleyda waddankeena marka laga hadlayo waxaa ku tacalluqa su'aalo badan oo isweydiin leh. Waa imisa dhererka buuraha waddankeena ku yaala? Buurta ugu dheer tusaale ahaan dhererkeedu waa imisa? Buurta Gacan Libaax masaafo intee le'eg ayay u jirtaa magaalada Hargeysa? Maxaase ka mid ah waxyaabaha ay gaarka la tahay? Buuraleyda silsiladda Golis xaggee ayay ka bilowdaan? Qiyaasta dhererka buuraha silsiladda Golis waa imisa? Gobollada Waqooyi Bari ilaa Jamhuuriyadda Jabuuti waxaa ku teedsan buuraleyda loo yaqaano silsiladda Golis ee kulaalaysa Badda Cas. Buurahaasu waa kuwo kala duwan marka laga fiiriyo xagga ballaca iyo dhererkaba. Qiyaas ahaanna dhererka buurahaas waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 1,800 oo mitir marka laga qiyaas qaato qiyaasta joogga badda. Buurta ugu dheer waddankeenuna waa Buurta Surad ee ku taalla gobolka Sanaag, dhererkeeduna yahay 2,407 mitir. Buurta Gacan Libaax. Buurta Gacan Libaax waxay ku taallaa gobolka Waqooyi Galbeed Soomaaliya, waxa ayna 125 kiiloomitir u jirtaa magaalada Hargeysa. Buurta Gacan Libaax waxay joogga dhulka ka sarreysaa qiyaas dhan 1,700 oo mitir. Buurtani waxay ka mid tahay buuraha ugu caansan ee ku yaala silsiladda Golis. Buurtu waxay caan ku tahay xagga dalxiiska, waana goob indhaha dadka u roon. Sidaan ka soo xigtay maqaal uu qoray Farxaan Maxamed Cige Askar bishii Janaayo 2009 isagoo booqasho ku tegay Buurta Gacan Libaax wuxuu sheegay in Buurta Gacan Libaax ay ka badbaaday xaalufinta deegaanka, waxaana ay buurtani gaar la tahay hawo macaan oo ay ugu wacan tahay dhirta faraha badan ee ku teedsan dacal ilaa dacal.